barqadii ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinaayo gaajiya u bakhtiya basaasto duntiisu ka boodiyo bulaanye gaajiya u bakhtiya basaasto dantiisu ka boodiyo bulaanye waxbartaan barwaaqa gaarane waxbartaan barwaaqa gaarane. assalaamu calaykum asxaabta ku xiran janaalka Hagar YouTube. janaalkan waxaanu kusoo gudbinaa barashada luqadda ingiriiska. haddii aad danaynayso inagu soo bir welcome ayaanu ku leenahay. maadaama codsiga uu batay in yacni aan gadaal iska soo dhisno wixii sheekooyin ah ama conversation ah ama qisooyin ah, soo hal maalin ayaan ka dhigi doonaa insha allah. inta kaletana waxaan ka dhiganaynaa ereyo iyo dhawaaqooda iyo micnahooda Soomaali ah iyo jumladooda. erey kasta oo English ah Soomaaligiisa iyo hal jumlad ayaan ku sii doonaa insha allah. waxaana rajeynaa jumladaas aan usoo geliyay oo kale adina hal jumlad inaad usoo qortid ama aad usoo gelisid comment aad inoogu reebtid. balse intaan casharka u guda gelin waxaan ku xasuusinayaa inaad janaalka subscribe iyo like inoo saarto, sidoo kalena aad share garayso si ay asxaabta uga faa'iidaystaan. okay, haddii aanu casharkeena u guda galno, halkan waxaa inoo aala 5 erey. 5taas erey iyo dhawaaqooda iyo Soomaaligooda. kadibna waxaan qaadanaynaa erey kasto hal jumlad ayaan soo gelinaynaa. waan rajeynaa adina inaad jumlad soo geliso comment ahaan aad inoogu soo qorto. waayahay. about, ability, above, able, abandon. okay, about micnaheedu saan u wada jeedno waa ku saabsan. marka yacni aad wax ku saabsan aad isticmaalaysid luqadda ingiriiska about aad adeegsanaysaa. ability iyaduna waa awood. above waa ka sareeya. able waa awoodid. haddii aad awoodo iyo haddii aan awoodo labadaba markaad isticmaalaysid able ayaa soo gelaysa meesha. abandon waa ka tegid ama dayacid. okay, waayahay. erey kasta jumlad ayaan soo gelinayaa, hal jumlad ama 2 jumlad intaan ka gaaro. adina waxaan ku xasuusinayaa daawadaha sharafta lahow inaad sidoo kale jumlad aad soo gelisid comment aad inoogu soo qortid.